anaga hadii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta maanta farxad weyn ayay noo tahay waxay noo tahay safarkii dheeraa aan ku soo marnay deegaanada kala duwan ee galmudug dadku waxay nagu xiraayeen shuruud adag shuruudaas adag waxa shaka ay ka qabaan meesha shirka lagu qabanayo oo galmudug muxuu ahay caasimada Dhuusamareeb ee galmudug nabad ma tahay la isku halay karo markii halkaan aan ku ballanay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumadda madaxdeeda wasiirada aan ku ballanay waxaan kala qaadanaa shaqadaas waxay ahayd saddex arrimood inaan qaybsano qayb wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lahayd waxa gogasho inay fidiso oo meel la degi karo oo logistikada ay dhamaystirto oo dadku ay meeshay degaan iyo meel munaasaba inay noqoto arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaadatay in amniga magaaladana uu xasalan yahay wasaaradda amniga ayaa laga rabay iyo Sheekh Maxamed Shaakir iyo tiimkiisa oo saadiq ku jiro annagana waxaan loo xil saaraa meel nabad dadka inaan keeno dadku waxaan u sheegaynaa marka annaga waxaan idin karnaa meel nabad aan keenina oo waxaan loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay haday nabad noqotana waxaa la idin karaa marmarsaba ma laha inaad isugu timaadaan caasimadiina oo aad ka wada hadashaan danihiina oo aman ku xirina yani aan lagu xirin waxyaabo kale dad aan shuruud la geerin talada waxay ka dhaxaysaa reer galmudug ayaa tala laga rabaa inay tashadaan wixii ka soo halaabay inay ka tashadaan mustaqbalkooda inay meel saaraan ayaa laga rabaa marka maanta waxaan u sheegaynaa reer galmudug iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shardiga amniga ah waxa sila waa maqlayseen ciidamada federaalka ee muxuu ahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haya airboorada iyo magaalada meelaha laga soo galay wasiirka amniga waa u jeeda wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay in logistikadu ay diyaar tahay marka waxaan ka rabnaa beelihii la cazumay oo loo qaybshay nambarada loo qaybshay waxaan ka sugaynaa marka wixii ka dambeeya inay liiskooda soo gudbiyaan waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ayuu bilaabi doonaa waqtiga la cayimay oo ah bisha 5 ayuu bilaabi doonaa waxaan rajaynaynaa inay soo gudbiyaan marka liisaskoodi diyaar waxa loo yahay in la qaabilo diyaar waxa loo yahay shirka inuu bilowdo horta intaas waxaan rabnaa inaan horta sheegno oo dadka ugu bashaarayno reer galmudug meel kasta ay joogaan dadka shakiga qabay ama arkay inay dan gaar laga leeyahay shirka ama koox gaar ku danaysa hayso dib u heshiisiinta reer galmudug waxaan rabnaa shuush kuwa inuu ka baxo iyo shakiga kuwa banaanka jooga ee idaacadaha iyo telefishinada shakiga ka gelinaya waxaan dhahaynaa shakiga in ka baxay imaada meesha waa dalkiini waa deegaankiini nabad u baahan yahay wada shaqayn u baahan yahay in la wada tashado u baahan yahay ruux laga leeyahay oo laga xigsanayo galmudug ma jirto reer galmudug dadka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin galmudug nabad oo maamul iyo dawlad ay u baahan yihiin waxaan ku casuumaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay taageeraan shirkan galmudug ka socda maxaa ila qayb kamid ah waxa waaye dawlad dhisidda Soomaaliya qayb kamid ah waan ogtihiin hadii galmudug ay degto in Soomaaliya muxuu ahaa meesha ay gaarsiin karto waa ogtihiin iyo baahida loo qabo gobolkan oo ah gobolkii muxuu ahaa isku xiraayay Soomaaliya oo dhan